السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتي كدب إلهي سبحانه وتعالى سوكين سوق علي أيام هذا السكناتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. سلامتي كدب ما أنت إن شاء الله وحاربي إن أنك الله dadka indhuhu xanuunayaan amba indhuhu casaanay noqdaan amba indha xanuunka ayaan rabay inaan ka hadlo oo si islaamiya amba diiniyana oo waxa weeyaan aan ka hadlo sida badiilka acshaabta la isku daweynayo. marka taas ayaan rabay ahayd harbaska inaan ka hadlo sida ay dawo u tahay ayaan rabay. cilaaj adawiya weeyaan, cilaajka waxa weeyaan aan rabay harbalka inaan ka hadlo insha allah. marka insha allah indha xanuunka ayaan rabaa inaan maanta ka hadlo. xanuunada indhaha ku dhaca ayaan rabay inaan ka hadlo insha allah. waxay diinteenu inaga farayso waxa weeyaan dhakhtarka iyo dadkeenii dhaqankeenii hore waxa ay isticmaali jireen ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo insha allah. haddaan dhinaca diinta ka hadlo, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku hadduu doonayo aragtidu ka yaraato waa inuu waxweeyaan qur-aanka ilaahay akhristaa. isaga ayaa qur-aanka indhaha isagaa soo celiya, indhahana isaga u wanaagsan qofku qur-aanka inuu akhristo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku boorinayaa dadka. qofku hadduu indhaha ka arki waayo wax uu si fiican wax u arki waayo amba indhihiisu naaqis noqdaan, wuxuu ina farayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka inaan in badan akhrisano sidoo asxaabtana taasuu fari jiray. halka kabacdi waxaa kaloo ammaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dawadaas ayuu isticmaala yidhi waa indha kuxuloo kale waxaa laga sameeyey bimaa zamzam oo maa alwarad ayaa ku jira. maasha allah aada bay u wanaagsan tahay. haddaan soo saaro meelaha xashka laga keenaa, maasha allah indhaha ayuu fiican yahay. rasuulka ayaa ammaanay, aada u ammaanay. wataasi waa qaruurada weeyaan, ilbaa ku sawiran, isha ku sawiran waxa weeyaan maasha allah. biyo zamzamaa laga sameeyey, indhaha u fiican yihiin macaa waxa weeyaan aada bay isha waxa weeyaan dawo u tahay. marka insha allah taas muxuu kaga hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marsada ayuu yidhi maalinta cashuura indhahana isku qaqabinina. marka aad marsatid indhaha waa inaad saa isku yara qabataa, kolkaaba calashaan bligliga ka siin indhaha. laakiin waxa weeyaan markaad marsatid indhaha isku yara qabo. maasha allah waa dawa ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ku indha kuxusha ayuu lahaa. waxa weeyaan indhaha haddayna xanuunayaan ku indha kuxusha al asmid. marka kulley halkan baad ka arkaysiin qofka magaceegu al asmid baa la yidhahdaa. marka insha allah indha kuxul aada u wanaagsan yahay. waxaa laga sameeyey biyaha zamzamka iyo maa alwarad iyo biyaha roosga ayaa laga sameeyey. maasha allah aada bay u wanaagsan yihiin. marka indha kuxushaasi indhaha ayay dawo u tahay. marka waxa weeyaan inaan ka faa'iidaysano marsada ayuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam indhaha ayay dawo u tahay. marka waxaa kaloo weydiiyey qaala cabdullaahi asxaabigaasi wuxuu ka cabanayey indhaha ayuu ka cabanayay isagoo markuu rasuulka u tagay calayhi salaatu wasalaam indhaha ayaa xanuunaya ayuu yidhi. wuxuu ka yidhi eeg buu ka yidhi qur-aanka akhri amba musxafka qur-aanka ilaahi subxaana watacaala akhri ayuu ka lahaa. wuxuu fari jiray qofku markuu indhaha ka cawdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu qofku qur-aanka in badan akhristo. marka indhaha ayuu soo celiyaa qur-aanku, aada buu noo wanaagsan yahay. xanuunada ku dhaca indhaha waxay u kala qaybsamaan 5 nooc ayay u kala qaybsamaan. 5ta nooc u kala qaybsamaan waa marka indhuhu waxa weeyaan aabad kala qaadi kari weeday huruud waxa weeyaan kaasoo daadana si aad moodid wax malax aad moodid oo huruud ah oo aada indhuhu iskugu dhegsan yihiin oo aad kala qaadi karin. marka waxaa kaloo noqdaan indhuhu casaan ayay ku noqonayaan. waxay ku noqonayaan indhaha marka ay dadka caddaadaan qaar baa meesha bu-da oo kala caddaanaysaa way ku daboolmayaan, way ku yaraanayaan oo waxa weeyaan aragtida ayaa kugu yaraanaysa. 5ta nooc ayay u kala baxaan indhuhu oo waxa weeyaan u naaqusmaan. marka waxa weeyaan muxuu ku sheegay markuu indhuhu si ay ku noqdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam. rasuulku wuxuu ina amrayaa
mar caafimaadka amba cilaashkiisa weliba aad marka ay ishu waxa isku kaadhagsan tahay ee waxa weeyaan waxa huruudu ka socoto iyo markii aad ku xanuunayso waxa weeyaan wuxuu ina farayaa inaan qaadno biyo qabow ay biyo yar qabow aan qaadno oon ku dhibcino indhaha waxa ay ka baabiinaysaa uskaga ayay ka baabiinaysaa oo ka hagaajisa laakiin intaanan indhaha aanan biyaha ku shubin waxaan sameynaa waxa weeyaan inaad indhihii kilingaraysid oo nadiifisid halka waxaa inoo yaala cagab ayaa inoo yaala biyo diirimaadaan sameynaya iyo milix yar baan isku darayaa milixda iyo biyaha markaan isku daro waxa weeyaan biyaha iyo milixdaasi waxay horta waxaad ku masaxaysaa waxa huruudda indhaha ka da-aya ayaad ku masaxaysaa ku kilingaraynaysa markaad kilingaraysid ishaad kala qabanaysaa waxaad ku dhibcinaysaa 3 dhibcood amba dhibic qoraad ku sameyn kartaa amba 3 dhibcood biyo qabow oo iska qabow ayaad indhaha ku qaboojinaysaa gundhiyo dadka way cuncunaan marka qadaad macaan allergy leedahay dad baa jira indhuhu aad u cuncunaan marka biyo qabow ayaad ku dhibcinaysaa waxa weeyaan waxa way ka kaxaynaysaa waxa uskaga gudaha ku jiro oo dhan bay safaynaysaasi biyaha yar qabow halkan kale xadiiskan kale qaala cabdullaahi bin mascuud ilaaha karaalaada asxaabigaasi wuxuu u amray zaynab wuxuu amray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ay ka cabatay indhaha wuxuu ka yidhi indhahaaga haddaad samaysid sida uu rasuulku yidhi sameeya calayhi salaatu wasalaam waxa ugu wanaagsan sidaa in la sameeyo marka waxa weeyaan marka aad sidaa ood samaysid biyara qabooba aad ku samaysid waxaa kaloo samaynaysaa ducadan akhrista ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam adhab albas رب الناس وأشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقما دعاء أنا كو آخر عندها وحويا ودو إذا عندها دو تهي وحويا ما شاء الله عندها دوين سد دعاء سنة أخرست أيولها رسولك عليه الصلاة والسلام وحويا مركاسي وحن قلون سمينا إنت أن قبنو إن بادك إنتي سعدانك إنت عدانك ayaad meelaha xiribaha oo kale ayaad ba yar marmarinaysaa oo waxa weeyaan waa beedka intiisa cadaanka waxaad marinaysaa indhaha ayaad marmarinaysaa waxoo kaloo ka dawo ah dacarta waa dawo iyadana ninka kitaabkan qoray waa dawo ayuu yiri dacarta waxa weeyaan waxa yar isjiijiidanaya ayaad qaadaysaa cutub yar baad qaadaysaa intaad ka masaxatid dacarta waxaan ku dhex jira ee jiijiidanaya ayaad cutubka yar qaadaysaa indhaha ayaa yar marinaysaa maasha allah meel madow inaad wuxuu sheegayaa meel madow inaad fadhiisatid ood ku samaysid dacarta laakiin insha allah meel kasta waa la iska fadhiisan karaa sanani aan aaminsanahay marka waxa weeyaan dacartuna waa dawo intaad cutub soo qaadid waxa weeyaan dacarta akhtarka dadka qaarkood intay radqadaan ayay waxa weeyaan cutubka gelinayaan indhaha ayay ku masaxayaan qofka xanuunsanaya waa inuu fadhiistaa meel madow ayuu leeyahay kitaabku laakiin insha allah waxa weeyaan dacartu waa dawo indhaha waa u dawo marka ha laga faa'iidaysto dawadeeda ha la isticmaalo ducadaana la akhristo adhab albas rabbi nnaas wa ashfi anta shaafi laa shifaa'u ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yuqaadiru saqma ducadaasi waa very important amba waa duco aada u wanaagsan ha laga faa'iidaysto ducadaasina marka dacartana ha laga faa'iidaysto waxaan nidhi beedka intiisa cadna way wanaagsan tahay inaad indhaha ku yara shubtid amba aad saartid aad bay iyadoo dawo u tahay indhaha ayaad u saaraysaa waxa weeyaan taasina waa dawo beedka intiisa cadaanka maaha inta huruudda ta cadaanka weeyaan marka insha allah halkan waxaa inoo yaalaa biyo kulul baan kusoo shubanaynaa iyo milix yar baan isku laaqanaynaa insha allah asxaabay waa taasi biyo baan kusoo shubay intaa yare haafkaasaad ku dhex ridaysaa saasaad ugu walaaqanaysaa maasha allah saasaad ugu walaaqaysaa biyo yaroo diirimaada iyo milixda baad isku yara walaaqaysaa indhaha ayaad ku kilin garaynaysaa indhaha waxa weeyaan wax huruuda uskag ayaa ka yimaada markaad aragtid inay maxaa la yidhaahdaa waxaasi saaran yahay cutub yar baad gelinaysaa biyo diirimaada iyo milixdaas ku laaqaysaa waad ku kilin garaynaysaa marka aad ku nadiifisid wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaan samaynaynaa markaad ku kilin garaysood nadiifisid biyo qabow
waxa weeyaan biyo qabow ayaad ku dhibcinaysaa, dhibic intaad qaadid ayaad ku dhibcinaysaa indhaha ku xanuunaya. marka dawadana waa ammaanay, indhaguxushaana waad marsanaysaa, aad bay dawo u tahay. marka laga faa'iidaysto insha allah. wataasi waa indhaguxul madow weeyaan, waxaa laga keenaa sacuudiga laga keenaa, maasha allah indhahay dawo u tahay. marka insha allah waxaa kaloo ina farinay maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan qur-aanka akhrisano. qur-aanka waa very important, qofka bini-aadanka inuu qur-aanka akhristo aad buu u wanaagsan yahay. beritoole waxa weeyaan waxaa kaa horeynayay waa qur-aanka ilaahi subxaana watacaala. adduunyo in lagu mashquula maaha, in qur-aanka la akhriyana aad bay u fiican tahay. waxaa kaloo ina faray in aan dacarta ku isticmaalno. dacarta aan iyada qudhadeeda indhaha waxa weeyaan ikhtarka intaan qaadno, cutubaan qaadno, waan ku kelin garino iyo waxa weeyaan aan ku dhibcino, iyadana waa dawo. dacartuna waa dawo indhaha, iyo beedka intiisa cadaankana waa dawo. marka insha allah aan ka faa'iidaysano fursadaha qaaliga. ilmaha yar hadduu yar yahay uu isagana indhuhu xanuunayo, waxaa u dawaa naaska caanaha ilmaha, hooyadu caanaha ka da-aya naaska anba yar marinaysaa. kaasi hadduu beebigu indhuhu xanuunayaan, naaska caanaha ayaa u dawaa isagana. marka insha allah wax badan ayaan ka faa'iidaysanay. rumaankuna waa dawo, rumaankuna waa dawo, beedkii caddaa. marka insha allah waxyaalaha indhaha ku dhaco oo dhan waxa weeyaan waxaasaa ka dawaa. marka insha allah wal waa badan yahay, laakiin insha allah in baan ka soo qaatay. biyaha waxa weeyaan dacartana aad bay u fiican tahay. akhtarkaasi in maxaa la yidhahdaa la mariyo, waxa weeyaan waxaa dushiisa la dul marinayo ayuu sheegayaa. waanad ku dhibcin kartaa, waanad ku masixi kartaa dushiisana. marka insha allah inaan ka faa'iidaysano. maalwaradkuna uu fiican yahay, waxa weeyaan kolleyba halkan buu ku jiraaba maalwaradku. haddaan indhaguxusha haysana maalwaradkaad ku isticmaalaysaa, iyadana waxa weeyaan indhaha dhibic yar baad ku samaynaysaa. maalwaradkuna waa dawo. marka insha allah dawooyin badan ayuu leeyahay. qofku waxa weeyaan haddii ay ishu waxa weeyaan dhiig ku leedahay, marka ay dhiig leedahay waxaad isku laaqaysaa milix iyo malab ayaad isku laaqaysaa. marka milixda iyo malab, malqacdeero malab iyo milixdaad isku laaqaysaa iyo biyahaasi. marka aad isku laaqdid waxa weeyaan waxa kaa tegaya oo dhiigga casaanka isha, matalan qof hadduu wax kaaga dhuftoo kale casaan ayaa isku bedeshaa, hoosta dhiig bay noqotaa. marka dhiigga waxaa ka kaxaynaya isha hoosteeda, waxaa ka kaxaynaya malab iyo milix iyo biyo yaroo diirimaada ayaad isku qaldaysaa, waad isku laaqaysaa, waad cutub yar baad qaadaysaa, iyadana waad marinaysaa. marka insha allah waxa weeyaan ha laga faa'iidaysto fursadaha qaaliga. waxaa yidhi milix iyo malab saafiya ayaa la isku darayaa. wuxuu kaa kaxayn dhiig markay ishu tahay, amba dhiig ku dhex taagan yahay isha. matalan haddii feer lagaaga dhaftay dhiig markay taado ishu ayuu kaa kaxaynayaa. marka isha hoosteeda oo kale, marka waxa weeyaan uu ka tegayaa, isaguna dhiiggaasaa ka tegaya haddii la isticmaalo malabka iyo milixda iyo biyaha. marka insha allah laga faa'iidaysto. waxaa kaloo sheegayaa khardalkii aan sameynaynay noocoo doonaba ahaado, haddii lasoo qaado oo biyaha basasha inta basal yar la kariyo, biyo lagu kariyo oo waxa weeyaan iyo khardalka la isku mariyo, wuxuu kaa kaxaynayaa isaguna indhaha waxa weeyaan dhiigga ayuu ka kaxaynayaa. marka insha allah aan ka faa'iidaysano fursadaha qaaliga insha allah. asxaabay waxa weeyaan halkan waxaa igu jira basal aan soo yara kariyey. insha allah waa beer baan kusoo dhex kariyey, basashaasi waan soo kariyey. waxaan rabaa basashuna waa dawo, biyo iyo milixdii halkaan dhigtay in aan 2 malqaacadood oo basashii aan kariyey inaan ku shubo. maasha allah indhaha ayaa lagu kelin garaynayaa, ambood indhaha ayaad ku nadiifinaysaa. iyo basasha sidaan idiin sheegay macamalo waa lagu samaysan karaa, waan kasoo sheekeeyay ahayd. waxaa kale oo wanaagsan biyaha basasha way fiican yihiin oo indhaha wuu fiican yihiin in lagu nadiifiyo. marka milixda iyo waxa weeyaan biyihii maxaa la yidhahdaa basasha iyo milixdii iyo biyo diirimaadaan isku daray, amba waxaad isku darsan kartaa basasha biyaheega iyo milixda baad isku laaqan kartaa. maasha allah weeyaan iyadana. laakiin sidii hore aan idiin sheegay indhaha
waxaa u fiican biyo yaroo qabo in lagu dhibciyo nadiif markaad ku kaliingaraysid aad ku safaysid biyo yaroo qabo inaad ku dhibcisid iyo baashii maxaa la yidhahdaa dacartii in lagu sameeyo ayaa aada ugu wanaagsan waxaa kaloo wanaagsan qofku ma aragtay indhihiisu hadday aada u daciif yihiin uuna irbada dunta gelin karayn marka maaragtay irbada dunta la gelinayo uuna qofku karayn waxaa u wanaagsan inuu baashaa ku indha kaxusho aad ba u wanaagsan tahay indhaha inuu marsado asmid weeyaan xashkana waa laga keenaa kolley ma garan meelo kaloo laakiin sacuudiga laga keenay tan marka insha allah taa lagu indha kaxusho iyo qur-aankana la akhriyo halkan waxaa kaloo yaala kaaroodku indhuhu wanaagsan yahay indhaha uu soo celiyaa marka ha laga faa'iidaysta isagana ha la cabo aad buu u fiican yahay indhaha ayuu aada ugu fiican yahay dee waa badan yihiin indha xanuunkuu badan yahay waxa weeyaan sanjabiilka oo kale wuu fiican yahay isaguna hadduu qofku cuno iyo hadduu sharaab ahaan intuu yar kululaysto saashaaha u karsado hadduu cabo isagana waa u dowo xaltiidka oo kale xildiiduna way fiican tahay haddii malab lagu qaldo malabka cad haddii inta laysku daro xildiid oo iyo malabka cad haddii markaa dhibic yar indhaha lagu shubto taasina waa dawo marka almuhiimka ugu weyni baasha in indhaha lagu marsado aad bay u fiican tahay oo waxa weye irbada dunta hadduuna qofku gelin karin tani waa u dawo kaaroodku waa dawo biyaha iyo milixda iyo basasha aan kariyey biyaheeguna waa dawo malab haddaad doonto waad ku darsan kartaa marka insha allah intaasaa dawa waad iska meel baad ku shuban kartaa waad iska dhigan kartaa waad isticmaali kartaa 7 cisho intay indhuhu ku xanuunayaan ay ka bogsanayaan indhuhu ka bogsanayaan ayaad isticmaalaysaa marka insha allah aan ka faa'iidaysano inta noocay u kala baxaan waa inoo soo sheegay way badan tahay marka insha allah aan ka faa'iidaysano xanuunaha maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xanuunada indhaha ku dhaca way badan yihiin insha allah maalin kale aan ka hadli doonaa marka dadka indhuhu sida biyaha u da-ayaan oo kalena insha allah maalin kale aan ka hadli doonaa laakiin hala isticmaalo kaaroodka waa dawo biyaha iyo milixda iyo basasha biyaheega iyadana waa dawo indhaha in lagu kaliin gareeyo aad ba u fiican tahay biyo qabo indhaha lagu dhibciyo insha allah babygeerna waxaa yidhi bay ahayd naaska hooyadii caanaha ayaa u dawo ah indhaha inuu u mariso kaasaa isagana u dawo ah markaa laga faa'iidaysto fursadaha qaaliga qur-aankana ha la akhristo qur-aanka indhuhu soo ceshaa indhaha hadday naaqusmaan ood qur-aanka akhridid zaani way soo noqonayaan indhahaagii marka insha allah aan ka faa'iidaysano fursadaha qaaliga ilaahay subxaana watacaala ina siiyey waana ku mahadsantihiin insha allah subscribe-kaad siinaysiin iyo share-kaad samaynaysiin iyo komadka quruxda badan laad idiisoo samaynaysiin aad baa idigu mahadnaqaya waanad mahadsantihiin ilaahay dartaana u samaynaya idinkuna insha allah ilaahay dartii igu caawiya insha allah dadkeena walaalaheena ee waxa weeyaan aan danyarada amba aan waxba haysan inay isku daweeyaan waxaan fudud ay heli karaan inay isku daweeyaan haddayna awoodi karin dawooyinka la iibsanayo marka waxaan herbalkaasi waa dawo marka insha allah ha isku daweeyaan waxa dabiiciga insha allah aad baana idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu